Nick Vujicic waa inuu alle ku abuuray bilaa gacmo iyo bilaa lugo. Haddana dhibaato kasta oo u sababtay bilaa gacmaha iyo bilaa lugaha uu yahay kama ay hor istaagin in uu ku guuleysto riyooyinkiisa. Wax kasta oo uu doonayana waa uu kaga rumeeyay. Waqtiga xaadirka la joogo Nick Vujicic waxa weeye dadka qoraalada kuwa ugu caansan ee ay weliba buugaagtiisa dad aad badan u xiiseeyaan. Waxa kale uu yahay dhiirigeliyaasha adduunka kuwa waqtigan la joogo lagu jecel yahay. haddaba qisadan aan maanta ka hadli doonaa iskuna day doono inaan wax ka barno waxa weeye sidee ayuu ku gaadhay heerkan uu joogo maanta isagoo weliba ah qof aan lixaadkiisu dhammaystirnayn. Aynu bilowno. Nick Vujicic wuxuu ku dhashay magaalada Melbourne ee waddanka Australia 1982 waxaana uu ku dhashay xanuun la dhaho tetraamelia syndrome. xanuunkaas oo sababa in dadku ay ku dhashaan bilaa gacmo iyo bilaa lugo. markii ugu horreysay ee aabbihii arkay wiilkan yar waxaa lagu leeyahay waa uu miyir beeleba. sababta uu miyir beelana wax kale ma aha waa naxdin iyo shaki uu qaaday markii uu arkay wiilkan yar sida uu u eegyahay. hooyadiina waxaa la sheegay in bilooyin badanba ay ku jirtay shock taas oo sababtayba in aanay wiilkeeda yar qaban karin sidii hooyooyinka ay carruurtooda u hayaan. haddana waalid waa waalid. bilooyin badan kadib waa ay la qabsadeen waxayna ogaadeen in wiilkan yar aanay cid kale oo aan iyaga ahayn u joogin markastana ay garab istaagnaadaan. markuu yaro koray waxay waalidku ay go'aan ku qaateen in ay ku daraan iskuul public ah sababooyin darteed ay ku awoodi kari waayeen in ay ku daraan iskuullada loogu talagalay dadka naafada ah. maadaama uu Nick ka doonaa carruurta kale ee iskuulkooda dhiganayaan waxa ay keentay in noloshiisa iskuulka ay aad iyo aad u adkaato. ardaydii uu la dhiganayana uu kala kulmo dhibaatooyin aad u badan ha ahaato mid jidh dil ahaaneed iyo mid maskaxaaneedba. waxa ay sababtay in haba yaraatee uu waayo cid uu la joogo wakhtiga iskuulka. carruurtii uu la dhiganayana ay noqdaan qaar jirdila iyo qaar ku qosqosla markay arkaan sababtuna darteeda ay tahay sida uu eegyahay. tani waxay keentay xanuunkii jidh ahaaneed ee uu Nick dareemi jiray inuu la kulmo mid ka daran oo ah mid maskaxeed. noloshii ayaa cidhiidhi ku noqotay waxa uuna bilaabay inuu markasta isweydiiyo sababta uu adduunkan ugu nool yahay. waxaa kale uu bilaabay in noloshiisa ay shaki weyn ka gasho waxaana maskaxdiisa ku soo dhacdaa mar kasta inaanu haba yaraatee adduunkan wax ka qabsan doonin. noloshiisa inta ka dhimanna uu ku noolaan doono murugo iyo jirdil uu dadka kala kulmayo. weligiisna aanu heli doonin qof jeclaada aan ka ahayn hooyadii iyo aabbihiis. dhibaatooyinkii badnaa ee lagu wada dartiis waxa ay keentay in uu bilaabo inuu isdilo adduunkanna uu iskaga tago sababtoo ah waxaa u caddaatay inaanu haba yaraatee wax faa'iido leh adduunka ugu soo korin doonin noloshiisuna ay sidan un ku dhammaan doonto. wixii dhowr jeer ayaan isku dayay inaan biyo isku dhex rido halkaa nolosha iga baxdo laakiin waxa keliya ee ka hor istaagta arrinta iyada ah waxay ahayd jacaylka uu qabo waalidkii iyo dhibaatooyinka ay waalidkii la kulmi doonaan haddii uu isdilo. wuxuu yidhi arrintaas ayaa markasta iga hor istaagtay inaan naftooda gooyo. iyadoo halkaa marayso oo ay noloshiisuna sidaas tahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah markaa waxaa ka soo wareegtay 7 sano markaan aan micne wuxuu ahaa 17 jir meelahaas ayaa hooyadii ayaa maalin waxay keentay meelahan wax lagu akhristo. kadib markii ay meesha keentay ayaa waxay heshay buug yar oo uu qoray nin sidiisa naafa ahaa. buuggaas waxaa ku qornaa caqabadihii uu ninkaas la kulmay iyo sida uga guulaystay caqabadahaas iyo dhibaatooyinka iyaga ah. Nick markii uu buuggan yar akhriyay waxaa gashay firfircooni oo maskaxdiisa markiiba waxa uu sheegay haddii uu qof aniga sideedoo kale ahay oo nolosha gul ka gaadhay maxaan aniguna uga gaadhi lahayaa sababtoo ah qofkaasi waxuu haba yaraatay iga doon yahay ma jirto. maalintaa kadib waxa uu bilaabay inuu nolosha ka fiiriyo dhinaca wanaagsan ama positifka. maalintaa kadib riyadiisu waxay noqotay in uu noqdo sida ninkan uu buuggiisa akhriyay oo kale oo uu dadka uga sheekeeyo noloshiisa iyo caqabadaha uu kala kulmo. markii ay sheekadu sidaas ahayd ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yeedhay macallin iskuulkiisa. macallinkaas oo arkay in Nick uu yahay nin balaaqada ku fiican dhiirigeliye fiican noqon kara. macallinkiina sidaas ayuu Nick ugu sheegay arrintii iyada ahayd uuna ku dhiirigeliyey in uu ku dhaqaaqo uuna noqon karo dhiirigeliye dadka dhiirigeliya qisooyinkiisana uga sheekeeya. arrintaa iyada ahayd Nick aad ayay u dhiirigelisay. wixii halkaa ka dambeeyeyna waxa uu bilaabay in ardayda iskuulka uu soo hor istaago ugana sheekeeyo qisooyinka iyo noloshiisa iyo dhibaatooyinka uu la kulmo. wixii intaa ka dambeeyey Nick waxa uu bilaabay in uu sameeyo organisation aan wax haba yaraatee faa'iido ka helin laakiin organisationkaas oo uu ugu talagalay keliya inuu dadka ku dhiirigeliyo. intaa wixii ka dambeeyey Nick waxa uu noqday dhiirigeliye caan ah adduunka oo dhan laga tixgeliyo. teeda kale waxa uu ahaa qoraa buugagiisana waxa ay dhiirigeliyeen dad 10,000 kun oo qof ah. 2008 maalinuu u jeedinayay dad 10,000 kun ah oo u dhiirigelinayay ayaa waxa uu la kulmay gabadh
gabadha waa isay markiiba ishooda isku dhaceen si fiican ay isu fahmeen 4 sano kadib gabadhii waa isguursadeen maanta la joogana waxay haystaan 4 carruur ah Nick maanta wax kasta oo qof caadi ah sameeyo waa uu sameeyaa ha ahaato waqtigiisa firaaqada ah inuu dabaasho ama wax kale uu sameeyo ciyaaraba wax kasta oo maskaxdiisa soo dhacda oo doonaya inuu sameeyo wuu sameeyaa bilaalugahan iyo gacmahan uu yahayna waxaaba yaraatay dhibaato ay ku hayaan ma jirto xaas jecel famil jecel iyo carruur fiican oo jecel yana waa haystaa haddaba maxaan qisadan u soo qaatay aynu ka baran karnaa qisadan waxa koowaad aan ka baran karnaa waxa weeye nolosha caqabad kasta iyo dhibaato kasta oo kula soo kulanta waad ka adkaan kartaa qofna ilaahay ma dul saaro caqabaduu og yahay inaanu qofkaasi awoodi kareen ama ka soo bixi kareenba qodobka labaad ee aan ka baranaana waxa weeye in markii caqabadaha aynu karano halkii aanu ka caban lahayn ee cabashaduna ay badan lahayd aynu ku bedelo inaanu action ka qaadno actionkaas oo la jeedo inaanu sameeyno ficil caqabada aan ugu hortay karno caqabaduhu iyo imtixaanku waa qayb nolosha ka mid ah waana halka ay ku kala baxaan dadka riyooyinkooda kaga rumeeya iyo dadka noloshooda ku dhamaysta cabasho iyo calaacal adigaagan idaawanaya haddii waqti xaadirkan la joogo ay jiraan caqabado ama dhibaatooyin ku haysta oo ka hortaagan riyooyinkaagaas laba mid ayaa ku bannaan waad koowaad ee waynaad isdhiibin oo aad la timaadid dadaal joogto ah waana hubaa haddii dadaalka aad badisid joogtana aad ka dhigtid waxaas inay ku rumoobi doonaan weliba waqti cayiman gudaheed talabaada ku bannaan waxa weeye inaad halkaas ku soo fadhidid waqtigaagana aad ku dhammaysid cudurdaar iyo cabasho hadhowtan aad geshid qoomamayn iyo canaasho aad naftaada canaananaysid labada go'aan aduu ku yeelaatii aad samayn lahayd haddii daawad aad ka heshay qisadan qisooyin badan oo noocan oo kalena waan hayaa kommentaarka ayaad igula soo wadaagi kartaan kommentiga hoose aad ku soo qori kartaan waa haddii aad jeclaysateen insha allah marka waxaan soo dayi doonaa inaan qisooyin badan oo noocan oo kale ah aan idiin soo gudbiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu